KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay alla leedahay si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan horta weydin salaam xalatayna marsheen iyo xinjirtii qubahaysay xandadii aan lahayn iyo xoolihii ka dhaqaaqnay xanaaqan qaba maanta haddii aan dad xakaarin xanjafa igu yaalo xurguflayga ma siin taariikhdu waa maguurte maskaxdii fayowba ka macaashta waayaha mahadhada ku reebe mashaqooyinka biiray murugta taalla horteenniyo mashaqooyinka biiray dadka reer muqdisho ma iska moosi karnaa marli waayi mashaakil oo soo maagi inaan iska maareerane meesha waa ku jirtaa ara murug laguma jiri kare xal lagama maarmaan waaye annagaan dareemine xamar baan dad loo rabin ee ama aan ka dagaagno ama aan isdifaacno war gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir cadagaabow wuxuu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan inta aysan dabar go'in sababtoo ah ayaga ayaa loo dan leeyahay dawlad difaacdana ma haystaan horaan waxaa loo yidhi galley meel gabiibi mataano ninka goosahaayo gunti waa xertaa war gudoomiyihii hore cadagaabow hadduu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan dawladda lafteeduna waa inay tashataa sababtoo ah ayadaba lama dhaafinoo duhurkiibaa madaxtooyada hoobiye lala dhacay wareedhaaya hadda ka hor cabdikariim guuleed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka markay qaraxya dhaceen kadib aa la yidhi uma qalin sida dhig xilka wasiirkaan amnigoo iska soo taagan dadkii waa dhammaadee ma dilkuu ku dallacaa isagu weerarrada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta horta weli wasiirkii amniga ciduma weydiis horaan waxaa loo yidhi geel goonaa diidi galgalashu waa ku ceeb war qaraxan iyo weerarkii isdaba socday 20 saacadood ka badan ayay socdeen ewelna markii bela dhacdo saacado koobana lagu soo afjari jiray ciidanka gaashaan maxaa loogu diiday inay galaan meesha war saadaqa eri ani iska filan saacadana ka afjare araada timir lafaa ku jirta taxadirayna u baahan tahay goos dambeedka sindafaniina aan iska gaarno aryaa sagaartuba lafay leedahay i dheganso masiibadu mugay dhacday jidadkii oo dhanaa la xiraa la yidhi dadkii dhaawac ahay kuwana waa la qaadi waaya kuwii isbitaallada la geeyana goojo dhiigahaa loo waayaa la yidhi dadkii dhiiggu ugu deeqi lahayna maxay mari lahaayeenaa la waaye jugaa dhacday ee beledka jeebee miya ujeedida arro war haw kala laga baqaaya war ma haysiine war madaxweyne xasan sheekh u horreey wax dadka dhiig u suba wuxuuna yidhi dhibaatada cadowgu geysanaya waa ka midaysannahay wixii dhiig lahow kaca war xasan sheekh wuxuu yidhi shabaabo wax kale waa ka wada hadli karnaa laakiin xasuuqa dadkeenna kama wada hadli karno war nimaan xil haynu war fiicana aryaadhaha madaxdaanya waa ka xunnahay iyo tacsiyadii ma gabeen ewalaan wax kale lagu haysan ayaamahaane war beenta iska daa ra'iisul wasaaraha tacsiyeeyey ficilkii dhacana cambaareeyey isbitaalladana booqdee war meeshan waxaa la rabaa sirdoon ogaada cadowgu waxa ay falkinayaane aawa taliyihii nabad sugidda war taliyaha nabad sugidda fahad waay war ummaddu fahad ma doorane farmaajay doorteen aryaadhaha amba fahad ha ahaato ama farmaajo ha ahaato ama wasiir abni ha ahaato ama wasiir kale ha ahaatee waxaan xalaa loo rabaa waxaana dhihi lahay how xasuuqa kii aan xal u hayn xilkow haya xalaal miya xasuuqa kii aan xal u hayn xilkow haya xalaal miya maya war xil xaaraanaga ku aragta warniyow imaka ma dadka dhintay banu oynaa mise dadka nool ar meeshaan faatax ma joogta feeray joogtaa aryaa arrintaanu qulhuwalla waa ka tagtay qaraxay joogtaa qaaluu innaa lillaah carruurtiinni yurubay jiraan gebi ahaantooda qarax iyo dil iyo hoobiyana ka cabsan maayaane dadkeennaa la baabi'inayaa maalin iyo leyle aduunkuna hub iyo ciidan baad nala dhex joogtaane naga daaya saaxiibayaal sheeka baralayda qarax lagu rogmaday iyo rubadgooyo joogtaa cambaar baan ku riday iyo tacsiyeyn raqiisoo reediyowgu tabiyaa nama raalli gelisee ra'yi kale ma haysaan kuwa raarka fuuliyo kuwa damacu ruxayow
allow xilka aad rabooteen raaxa laguma helaye yaa rafaad u mari kara wixii aan run ahayn rasiya u dambayse yaa xabadda ridi kara risaasiya isu dhigi kara inuu shacabku rays dego ruux ayaa u huri kara ruuxgooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo ruuxgooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo war inta adeer xabaalbilaash ku mayraysanaysaan carruurtiinna somalilan noogu keenaniyow been waa ku ragno raad yeelan mayse kala reebto waatan ayaa raranka geli kara war ciidanka booliska shalay bac ka siyaa loo bixiyey sababtoo ah rasaastaa ku yareed war ciidamada booliiska majaamac ciyaaraya markay bac ka sii leeyahay bac ka sii waryaa bac ka sii waryaa bac baasuukii baarudi gari hayan booliska hoblan waay bac ka sii ino la ere ol kutubaka laangan jabi war milkiilaha hotel maka al mukarrama guray xaaji wuxuu yiri waa markii shanaadoo lay qarxinayo haddana waa dhisaya war talada allah idinka qaadaye annagu ka naga dhinta 8 bilood banu oyna war gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxay tiri iyadoo balaayada meel ka timid aan is weydiin in guriyo dhismo lagu bilaabo waa nasiib darro tayaa reerkan ku dhacay dad ruux lii kuma qancee xagee inta loo rara war Soomaaliland soo guurniyow war waxaa la yidhi fahamka iyo garashaduba waa fayda nololeed Soomaalida waxaa kala furfura faamilna u qaybsha colaad la isku feentiyo waxaa fawda dhaxal siiya kooxdii fashilantaa shaqada kama fariistaano filin iyo silsilad maafiyaad ficilka mooda war haanyo ee aadiyo iyo awjo 4.5 alare may hamaansiinkiin dilo hayada ariya dawladdaana qabiil lagu soo dhisay mana diidi kartida qaraxa naga dhaaf qaras indhaha ka rideen war dawladdaanu ku fashilmi meel laba qarax iyo hoobiyaal madaxtooye la dhaco war waxaa la yiri qaraxan iyo kiisoobe isku qaabay ahaayeen war adeeru calaacal lama rabe runta waa la idin sheego muqdisho dad looma rabaa la yiri isdifaaca muga difaac miyaanu hawlanahay ariya war dabanka kuna dawladda jirta shacab isdifaac difaac dawladda la ku fadeeyay war adeer ka baxa midowga oo cadaanka u booda war madaxweynaha Kenya madaxweynaha Soomaaliya Uganda ku kulmayaan la yiri khilaafka ayayna ka wada hadlayaan war madaxweyne farmaajo u soo niinta asiyoyna isku bahay ma maxkamadii laga tanaasulaya xorjaja miya la gala oo iyagana waa kulmaayeen miya una kan abatay amla u buubuweena allo albaab noofur aryaadaha madaxweynaha Uganda Museveni Soomaaliya dawladu kama jirto heeshada dhahaye saan dhexdhexaadintiisa ugu qancayna mugga war adeer madaxweynaha Kenya ku kuyada madaxweyne Muuse Biixi ka horeeyay wada hadalka war ciidanka Kenya gada meel badan iskaga bixin awaliya jooga yiri akuuna beesa keentay war maxkamadda Puntland 5 nin oo inay gabar kufsadeen lagu eedeeyay dil ku xukunta toogasha horta taas igu sina kuwa caasha kufsada ma la soo helay waaga war caashaadeer calol xumadeeda igada war maxkamadda Gurceel waa laga cadaalad roonaaday marka Dr. Shaakir dib asku noqdo kitaab si fiican u firi garow way gaalkacay goldawg Gurceel iyo gado gabdhaha godob looga galay geyga bakiyana galbiin iyo inay gaayro ma in koraabti aryaada xamara qarax bari gasho ugu hastaasad Gurceel iyo gada iyo gaalkacay leedahay gurugin ha gubtay walaal lagu kala wado meesha dadkaan damiir male hal dilahdii la rabay wariyana sida dameerada la wariya war idinko dhan baan damiir lahayn aryaa naga tag qanda gafuur cad waxa ku dishay ilaahay yow dadkan cadawgoora qabo